walaalayaal khudbadeena maanta waxay ka hadlaysaa toddoba qodob ama toddoba faa'iido oo sabirka laga helo toddoba faa'iido oo sabirka laga helo ayay khudbadeena maanta taaban doontaa iyo saddex qodob oo inagu garab galaya ama inoogu caawinaya inaynu saabiriinta ku biirno sabir kelmadda in badan baynu maqalay sabir in badan baynu maqalay muxuu yahay sabirku maadada sabirka loo yaqaan luqa carabiga hadaynu u noqono waa dacarta sibriga waxa loo yaqaan sibri af carabiga waa dacarta sabirka sababta sabir loogu bixiyay waa alamka iyo qaraadhka iyo dhibaatada iyo adkaysi la'aanta dadka uu ku sameeyo ayaa sabir loogu bixiyay sida dacarta oo kale ayuu u qaraadh yahay faa'iidadiisuna adduun iyo aakhiraba waxay u soo degdegtaa dacarta faa'iidadeedu sida ay u soo degdegto ma jirto walaalayaal dawooyin badan oo hadda aynu naqaano la isticmaalo ilaa unsur kamidii waa dacarta ayaa ku jirta oo lagu dara dawooyinkan aynu naqaano waxa looga maarmi waayayna waa dawadeeda sabirku hadaba sida dacarta oo kale ayuu u qaraadh yahay ayna cidi ugu adkaysanaynin sida dacarta oo kale ayuuna u faa'iido badan yahay walaalayaal toddoba faa'iido oo sabirku uu leeyahay ayaan jecelahay inaynu bal isla eegno si aynu ugu dayanno inaynu noqon karno inaynu saabiriinta ku biirno dadka sabra si aynu u noqonno bal aan isla eegno maalinta qiyaamada marka adiga iyo camalkaaga la iskaga kiin tago rabbigaana subxaanahu wa tacaala uu kuu yeedho ee lagu xisaabinayo camal kasta ood lahayd bannaanka la keeno miisaanka iyo kafadana halkaa laguu soo dhigo labadaa kafadoodna la yidhaha eegta kolbata idiin cuslaata taa unbaa daarteedii unbaad geli doontiine nin kasta wuu gariirayaa wuu naxayaa wuxuu ka baqayaa camalkiisa wanaagsan iyo kiisa xun ka badanaya walaalayaal saabiriintu markay halkaa ka soo baxaan nin kasta camalkiisa waa la xisaabaa laakiin saabirka lama xisaabo ilaahay baa inoogu sheegay qur'aanka wuxuu ina yidhi innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab innamaa yuwaffa saabiruun saabiriinta waxaa loo oofiyaa ajrahum ajrigooga bigayri xisaab la'aan haddaad tahay saabir laguu xisaabiba maayo adiga toos waa cala duul baad jannada u gelaysaa walaalayaal sabirku waa maxay haddaba sabirku waa maxay dadka qaar baa moodaya abaalcelinta ninku wanaajiyey haddaad adna wanaajiso nin intaad cayday kuu dulqaatay marka uu ku caayo haddaad u dulqaadato waa abaalcelin baa la yidhaahdaa sabirka waxaa loo yaqaanaa si badheedha oo cad oo meela lagugu soo gabannin ninka kuu maaga eed haddana ilaahay dartii adoo ka awood badan maaha inuu itaal halkaa ku dhigo nin hadduu itaal meesha ku dhigo oo tidhaa saabir baanahay kiyuu itaal ku hayo xaggeed saabir ka tahay taag baa meesha ku dhigtaye waxaa lagaa doonayaa adoo qofkan qaban kara adoo iska celin kara adigoo ka awood badan inaad haddana u qosasho oo tidhaa bal miskiinkan halka uu taagan yahay eeg bal sida uu u dhaqmayo eeg adigu aad ceshato kaa weeyaan sabirku saxaabadeennii in badan baynu ku naqaanay nin baa maalin la yidhi hebel horta cariyaa ka cadhaysiin kara ninkaasi waa saabir yaa ka cadhaysiin kara nin baa yidhi aniga ii daaya anaa ka cadhaysiini waxay doonayaan inay ogaadaan bal cadhadiisu intay la eg tahay ninkani waa buur dabayshu si fudud kuma dhaqaajin karto nebi maxamed baa tababaray rasuulkuna laa taqdabu ina yidhi dardaarankiisii haba cadhoonin haddaad cadhooto kubad baad noqon garoonka shaydaanka taalla walaalayaal bal sida ay u sabri jireen eeg nin baa u yimid wuxuu ku yidhi hebelow hooyadaa waan jeclaadee ka warran inaan hooyadaa guursado iiga warran buu yidhi waan jeclaadaye hooyaday haddaad jeclaatay maxaad iiga sheegi dee guurso ma odhannin kuma xanaaqin wuxuu ku yidhi maxaad ku jeclaatay wuxuu yidhi wallahi way berye waaweyn tahay markay halkaa marayso beryaheegun baan ka helay buu yidhi aabbahayba markuu guursanayay intaasuu ku jeclaaday ila tahay buu yidhi
aabahayba markuu guursanayay inuu intaa ku jeclaaday way ila tahay buu yidhi kolkaa wuu isdhaafiyey ninkii wuu yaabay qadiyadu ninkan ula tegey iyo ninkani wuxuu ugu jawaabay iyo siduu u cadhoon waayey iyo mawaalidkay ma hooyaday ma tii dhashay ayaa sidaa waxa badaa ma gelin ninkani waa nin muslima waa nin mutawaadica waa nin aadaabta garanaya waa nin diinta nebi maxamed ku dhaqmayo madrasadii nebi maxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam imaamu shaafici ayuu nini u yimid hooyadii buu caayey imaamu shaafici hooyadii ayuu caayay oo welibana waxyaabaan afkaa la soo marin karaynin ayuu ku yidhi imaamu shaafici wuxuu ku yidhi hadday hooyaday sidaa tahay ilaahay baa xisaabin adigu xisaabin maysid buu yidhi ma xanaaqin ma anigoo imaamu shaafici ayaad hooyaday wax ka sheegaysaa ma hooyaday oo dhimatay baad wax ka sheegaysaa baddaan ma gelin wuxuu yidhi ilaahay baa xisaabini sidaad sheegaysa hadday tahay ninkii ayaa dib loo qabsaday markaasaa lagu yidhi maad garanaysay ninkanad hooyadii caayaysay waa imaamu shaafici waa sheekhii adduunka war orodoo sheekha cafis iyo raalligelin weydiiso sheekhii buu yimid markaasuu yidhi warna waa khaldamaye raalligelin iyo cafis baan kaa rabaa wuxuu yidhi cafiskaadi weydiisanaysa ani waxba igamaadan gelin laakiin qof dhintay ayaad ka gashay ood ku aflagaantootaye dee ilaahay hortiisa ayaa ama kugu cafii ama ay kugu qabsan doonta hooyaday way dhimatay buu yidhi xaqay leedahay anigu ma cafin karo buu yidhi waa qadaf aad la timid ee ilaahay baad la hortegi doontaa walaalayaal dadkeennii wanaagsanaa haddaynu doonayno inaynu aragno sabirkoogu sidaasoo horta ahaa waxayna eegayeen innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab miyaadan adigu jeclayn ajrigaagu xisaab la'aan inuu noqdo waxbaba inaan laguu miisin qur'aanka waxaan ognahay ninku hadduu xasano sameeyo 10 baa loogu dhuftaa 10 ayaa loogu dhuftaa waayo waa qaacido qur'aanka ku qoran haddaad ku shilin bixiso 10 kun bay kuu noqonaysaa waxaad man jaa'a bixasanatin falahu 10 amhaaliha buu ilaahay yidhi falahu 10 amhaaliha haddaad hal xasano la timaa 10 baa lagugu dhufan raggii fahmay cali bin abi aalib baa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mida faaduma ka xanuunsatay waxaa lagu yidhi liin baa dawo u aliin macaan xabad liina buu soo shaqeeyey maalin oo dhan buu soo dhididayuu soo xamaalayey guriga markuu soo gelayo albaabka garaacaya ayuu miskiin arkay miskiinkii baa yidhi caliyow xabadda ii dhiib calina nebi maxamed baa tarbiyeeyoo mayadaba ma yaqaan xabaddii qofka xanuunsanayey uu u soo shaqeeyey ayuu u dhiibay miskiinkii gabadhii ayuu ag fadhiistay isagoo faramadhan in yar markuu fadhiyey baa albaabka lagu garaacay nin baa ku garaacay wuxuu yidhi cabduraxmaan ibnu cawf baa ii kaa soo diray 9 midhoo liinuuna iigu kaa soo dhiibay wuxuu ogaaday inaad liin u baahnayd wuxuu ku yidhi cali 9 kuuma soo dhiibine 10 buu kuu soo dhiibay ii dhiib markaasuu may 9 buu ii soo dhiibay way isku celceliyeen markii dambe uu yidhi warniyow 10 bay ahayde maxaad ku garatay qur'aanka waxaa noogu qoran buu yidhi man jaa'a bixasanatin falahu 10 amhaaliha haddaad xasano samayso 10 baa lagugu dhufan xabad baan bixiyo 10 baan filayey buu yidhi laakiin qur'aanka nooguma taal man jaa'a bixasanatin falahu 9 amhaaliha 9 baa lagugu dhufan qur'aanka kuma qorna walaalayaal xasanada aan bixinno 10 baa lagu dhuftaa dadka qaar waxaa loogu dhuftaa 700 sida suuratul baqara ilaahay aayadda qur'aanka ka misali xabbatin anbatat 7 sanaabila fii kulli sumbulatin 100 habba waa 700 lagu dhuftay 700 lagu dhuftay waa 700 dadka qaar baa 700 loogu dhuftaa 700 xasan haddaad hal xasan kun shilin haddaad bixiso 700 bay dadka qaar u noqonaysaa labada aayadoodba qur'aankay ku jiraan maxay ku kala duwan yihiin markaa ma kala duwanna ee niyada dadka ayaa kala duwan niyadaada way waa bixasabi niyya ninkani isagoo kun shilin bixinaya ayuu isha la sii raacaya armuku daayo kanina isagoo kun shilin bixinaya ayuu isleeyahay kun kale maad heshid waad siin lahayde ma isku ajri baabay kula tahay markaa isku ajri ma aha ninkan isla waa bakhayl baa lagu odhan wax u bixi iyo ninkan ilaahay dartii ay ka tahay een ammaan iyo abaaltoona ku rabin isku ajri ma aha nin waa 10 jeer ninna waa 700 isla aayadda 700 sheegtay waxa ka dambeeya wallahu yudaa'ifu liman yashaa cadad bal lama sheegin 700 in ka sarraysa ayaa dadka qaar loogu dhufanayaa baa la yidhi haddaba saabirkiiba halka yimid isagu 10 loogu dhufan maayo 700na loogu dhufan maayo 700 tiro ka badan oo la garanayana loogu dhufan maayo waaba xisaab la'aan isagu
حساب لآن إنما يوفى صابرون أجرهم بغير حساب حساب لآن بأجر ليس الله إياه ولا ريال ما تشعل لها إلهي إنه دولكن إنه إنما كمية ما تشعل لها وانبر واقعي إن متقليكو هلنا ما تشعل لها وإنه إنه إسحكو الله عدكنا وإنه بوميستا أين إنه إيمان ما تشعل لها دولكن إنه متقليكو هلنا إننا إنه نقولنا دادكينا هاي كفا إيدي سنة ما تشعل لها ونعم جوابته صبر كأينه أغانه هدان دونينا إنه أمدا إمام يقول نقولنا oo umada aynu noqono dadkii hagayay hanuuninayay sabirka aynu ogaano ilaahay baa aayad quraana inoogu tilmaamay wuxuu yiri waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waxaanu ka dhignay madax baanu ka dhignay buu ilaahay leeyahay madax walibana umada hanuuninaysa oo umada xaq u sheegaysa ayaanu ka dhignay waa goorma laakiin والله قدر مركي لقى هلاي لما صبروا بإلهي ومركي صبر يشين دلقات أيشين أتكيس أيشين لما صبروا شرطي الله بعدنا وكانوا بآياتنا يوقنون آياتها إلهينا أي يقينيين الصبر واليقين مضحبا لقوا هلا لقوا نقضا لبدا قدر بداد يالته الصبر واليقين ووحيابها كينا مضحني ماذا ويان يقع كينا يا مضحني ماذا وحين أركينا ولا ليان waa laba qodob oo sabirka laga helo weeyaan in ajrigaagu xisaab la'aan noqdo iyo inaad ummadda dhulka ka talinaysa aad noqoto sabir ayaa lagu helaa qodobka saddexaad ee sabirka aan doonayno inaynu ku aragno ilaahay ayaa inagu jeclaanaya amal ilaahay kugu jeclaanayo allihii koonkan ba abuurtay ee jannada iyo naarta abuuray ee adoomada xisaabinayay amal uu kugu jeclaanayo marka aad qabato balka waran عملكاسي وعملك الصبر كله يقانو إلهي با قرآن كإنه شيء وإنه يري والله يحب الصابرين إلهي وحي جعليه ضدك صابرين تا أتكيستا قال إلهي أيات شعل ولا ريال أفضل لغو قولي بكرا عرب لغو قولي بكرا قلم لغو قولي بكرا وحذرتي هاي قعن لغو قولي بكرا أدن لغو قولي بكرا jaarnima lagu dhibi karaa ama mid guri ha ahaato ama mid meheradeed ha ahaato haddii dhibaatada kugu imanaysa ileen adduun baa la joogaaye dhibaatada haddaad u adkaysato kow calaamad ilaahay uu dadka ku jeclaado ayaa dhexdaada ku jirta bishaarayso wallahu yuhibbu saabiriin ilaahay ayaa jecel dadka saabiriinta ah ee adkaysiga leh qodobkeena afraad walaalayaal sabirka waxaynu ognahay inuu yahay dhibaatadu markay timaado hubka lagu dagaal galo gaashaanka balaayada la iska xijisiiyaa waa sabirka weeyi nabi maxamedna wuxuu yiri lama siiyo qof muslima wax ka khayr badan ama ka ballaaran sabirka waxa loo yaqaan haddaa tahay saabir إلهي أمهضنق سبحانه وتعالى إلهي الله كسيي أمهضنق صبرك الله كسيي ذاتك وين نقانا ذاتك قاربا سوق قريري هذا وحير إذن كلا قران وحير هذا إذن كلا قران ويكوكو سوق قرقريان با كاتسين إيو وكادن إيو عذر دار سمين إيو قف كان قف شرف لبوها هاي محاهلي إيو سيدي وحوقد عيني وحاسم بشيران ذاتك إلهي كونك كو أبوري ولا ليال وشهداء الله في أرضه ومرخاتيه ذاتك قاربا هدي وحيدن كلا قلان كوكو فرحيا oo oranaya meel bay waxna kala galeen ha waa nin la kala baxo ninkaasi waa nin la kala baxo ay oranaya dadka qaarna haday wax iska kiin galaan waa dacar baa tahay baa lagu oranaya ninkaasi waa dacar lagama dhamaado ayaa lagu oranaya walaalayaal ummadda aynu u fudaydino ama aabayaasha aan noqono ama hooyooyinka aynu noqono aynu ummadda u fudaydino waxyaabaha in kala galaan aynu ogaano daartani waa daarul amal daarul jazaa inay inaga dambayso la inagu abaalinayo oo wax kasta oo aynu dhiganaaba oo inagu horeynayo aynu ogaano nabi maxamed xadiiska uu yiri bal hada ila maqla wa bukhari iyo muslim ayaa soo saaray ma udiya ahad adaan khayran wa awsa'a min as-sabr qofna lama siiyo rasuulku leeyahay siismo ka khayr badan ama ka ballaaran sabirka waxa loo yaqaan wa qodobkeena afraad qodobka shanaad sabirka markaynu qiimaynayno ama aan arkayno saddex arrimood oo aad u waaweyn saddex darajo oo aad u waaweyn buu ilaahay siiyey
وحيري إلهي ولنبلونكم وأنه إذن امتحاني بشيء من الخوف بشيء ونكره إلهي عبسيدي سمحين وكرنقانا بشيء إن يرى من الخوف عبسية بأنه إذن كسو دينينا مركز نقولكم إذن لقل الجلاني وإن إن بضل له مسو دينيو ولنبلونكم بشيء من الخوف إن يرى عبسية أيانه إذن كو امتحاني والجوع قاتل أيانه إذن كو امتحاني ونقص من الأموال حولها أيانه إذن كدمي وفقرانه إذن كدقي والأنفس النفع أيانه إذن كو امتحاني كل بقفة شعليد بكا حنوسا أما كادما والثمرات منها أيانه إذن كو امتحاني إذن كبئي وبشر الصابرين انت أنه سوشيك لي دادك وأتكيستا دادك أو بشارة بالنبي محمد لليه ولا يلعب سبا الله إذن كو امتحاني ويلحي كبالله رجل شيوان نبض بيسومالي دورن شلتي أولاد يعبس ميلي تعالى راحة ما تعالى هردنا ما تعالى وحيابها الله يسكو امتحانه أي أولاد يعبس دو كوكتاي بل أمدهن إيقا الله امتحانه يقبين يقولي إيدين عاد إيكتب شاركة إنك لا ولا يلوى امتحان كسعود ويان ربي وحيري أولئك عليهم صلوات من ربهم صلوات باكد أي سيدة ربك وكلك واصابرين تأه وكو ورحمة نحريس باكو هوريسة وأولئك هم المهتدون أدون كان وضل أغفي عنهم بيراعيا آخرنا وابدت كان لهنونية الليبان أي نقريا وصدح الرماد عمر بن الخطاب محيري ألا وناكسنا أبوي للبدا إلهي اسكر رأي إيا قرادق اللو سميي قرادق أوركا مركا لبدا دينا لبد بريق لغا قررو أيا اللورنجي لوا اسكر رمان قرادقنا وحا اللورنجي انت يرد كذا الله صارو صدح ذا الدرجة إلهي سميي أيو لبا اسكر رميا إيا مد قرادق أيو عمر بن الخطاب كدقاي فاصبر لكل مصيبة وتجلدي ولا يلقلب كاللحاد أجلق الصبرك إيا تقوى الله يهلا ولقود ملمان بل هذا قولك هو فير صدا إن بدأ واحد اسويدين شري قف وناكسن أو وناكن كوغا أيان اركي شري مركا قار وحيابا كالون دي لوغا برانين يسيقو كوشرا والله وين وروري شري ينفضل وحن كوروري شري قفكا أدقرنا يسيد وناكا كوغا يد لكن ما أنت ماشي كده كوشرا ورور بدن بانك قبي وانا خاطم هذا سيد اللي هي ولا ليال بشارة لكن ما شنت الله مالن اون هدار عمل يرنها هذا إلهي درتي أدو قبطي كل شلن او إلهي درتي أدو بحصي اولن اسك الشيقين او هر إلهي يهبين آخر أدو لبحدي هدو تشيرو كدبنا اي وحيابك لكاد عان اوغو سابقا وناكسنو إلهي او كوغو هنونين دونو اياتين خاطم هذا دوني وناكسناتي وبدنتاي وانا آيادنا إن تصينيسا وحسناء oo ilaahay dartii aad ula baxday oo ku qarsoon oo sir adiga iyo ilaahay idin dhaxaysi haday jirto khaatumadaada ogow inay khayr noqonayso waxaan ku garanaynaa aayadan rabbiga wuxuu yiri innahu man yattaqi qofka ilaahay ka baqa wa yasbir hadana sabir ku dara fa inna allaha la yudii'u ajra al-muhsinin إلهي قفك محسن كأ أجرك كضيع مايو هذي توبادو أي حماتو هذي خاتمادو حماتو كون كيشلين بك هذا يعني أيضا نوحي إنه شيء يسا وحي يرأه إلهي أبو رب حذا إنه لك هذا يعني هذا ما أركتو من لماذا ما يسكت دريا وهذا خاتمادي سواي حماتي وحي وناق وإيقا وبحنجي وناق وناد ما هين وقف انتو وحبحية جرائدك كسو قرية قف انتو وحبحية تيفيك ويارية قف انتو وحبحية ايدا لجلينية قف كاسي هر إلهي هبين آخر أولا ما بحن قفك وحلبحا سيدي سلفك أمد النوي قفك كؤبتو كان يفرق وقنتي جرين وراغنا ويراعين يصدقائنا يتاي وحسا الله ما إنونا أهين qofkaasi wuxuu diidan yahay qof garanaya inuu wax u dhiibo way qofad garanaysa haduu wax ku dhiibo ugu yaraan waad ixtiraamaysaa احترامك واجرياني آخر قيب كميدو كوسو قديمي وي كان وحسيني ساينو كعايا كوغفي عن كان وحسيني ساينو كعايو ايا اديغا كوغفي عن حق اجريغاغا وهي ابالكاغي آخر كوودا جيرا آخر اي كوودا جيرا ولا لا يلقلب كسيديداد ربنا سبحانه وتعالى وحي انو شيغي قفك صابرك انو الهي عيسى يحيى الهي ايا معاغا dhibaatooyinka adkaysi baad u yeelan ilaahay baa ku heelin
ilaahay baa kuu gargaari ilaahay baa waxaaga socodsiinaya qofku hadduu saabir yahay saabirba hadduu yahay ma aha dadka dhayalu gilgisho ma aha waxaa laga yaabaa aynu ognahay boqorradii muslimiinta waa ninkii hishaam binu cabdilmalik la odhan jiray wuxuu arkay saalim binu cabdilaahi binu cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu oo maryo jeexjeexan xidhan oo kacbada dawaafaya markaasuu khaliifku ka daba cararay markaasuu yidhi saalimo wuu yidhi waan ku arkaa inay duruuf dhaqaala kaa muuqatee amar wuxuunan kuu dhiibe markaasuu ku yidhi hishaam maad waalan tahay ilaahay beydkiisii baan joogaayo qayrkii bari baad leedahay warniyow xishoo buu yidhi wuu baxay saalim waa baxay markuu ka baxay meeshii ayuu hishaam ka daba tegay yuu yidhi war malaha kacbada iyo xaramkuu ka xishoonaye bal hadda ka daba tag wuu ka daba tegey saalim muxuu ugu jawaabay intaan noolahay buu intii aan noolaa buu yidhi iska daa adiga oo boqor yaroo miskiinah allaha koonka abuurtay baanan adduunyo weydiisan buu yidhi allaha koonka abuurtay wallaahi inaanan adduunyo weydiisan buu yidhi walaalayaal waad aragtaa ninkaa miciyatullaahi buu haystaa miciyatullah iminka waxaad moodaysaa filim waxaad isleedahay ma dhabbaa qofaan ilaahay baryayn dad baa waxaynu garanaynaa salafu haadihi lumma way xishoon jireen ilaahay inay subxaanahu wa tacaala wax ka baryaan walaalayaal khudbaddeenna waxaynu ku soo afjaraynaa ama aan ku soo gunaanadaynaa waxyaabaha sabirka inagu caawinaya ama inagu kaalmaynaya waxa ka mida salaada ilaahay baana qur'aanka inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca saabiriin ilaahay baa macaaga noqonaya hada wsaluu wsalimuu على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصابرين ومن حزبك المفلحين. اللهم اجعل الصبر لنا ضياء ولنا عدة وعونا وأجزنا به الجزاء الأوفى. اللهم إنا نسألك يوم الحشر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من السابقين وأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا في ظل عرشك يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك اليهود والنصارى والصليبيين والشيوعيين والباطنيين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك
نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ترفع به ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتغفر ذنوبنا وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ترفع به ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتغفر ذنوبنا وتسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر من بنى هذا المسجد ذنبه وذنب والديه وتقبل منه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله